afhayeenka xisbiga wadani Barkad Jaamac Batuun oo saaka looga yeeray xarunta dambi baadhista ee magaalada Hargeysa markii uu ka soo baxay Barkad xarunta dambi baadhista waxa warbaahinta u sheegay ujeedadii looga yeeray iyo su'aalihii la weydiiyay waad maasantii saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland sharafta laba tobankii subaxnimo saaka waxa laga yeeray xarunta CID-da ama dambi baadhista ee magaalada Hargeysa waxa su'aalo badan laga weydiiyay guud ahaan dhaliilaha xukuumiga أنا أفكر حسب جاكو هذا ليا أنجديو رنتينا ماشى اللي يدهضو لبا عن كل ما ماشى ما يشرين تليا سيدي دا سشرف لي سود وياي سشرف لسؤالي ويديي سؤاله وحن بكوساب صناعين دليلها نوتشديو حكومة كل مية لحد السنة ده ودنبيي طبعا تانا ده waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyay wuxuun baa aad dadka waxaan xantaynayaa oo iyaduna meesha ku jirtay arintii shalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd anu deegaanka ka soo jeedo iyo dadkayga iyadan laftirkeedana su'aal bay iga weydiiyeen waxay igu dhahdeen arinta aad tiri madaxweynuhu wuxuu yiri midgaanka Airbaan isaga taaglay maxaad iyadana ku cadeynaysaa iyadana cadeynteedii gacantan ka saaray waana nu geeyay wayna iga qaadeen wax kale oo dhibo jirtaana ma jirto wuxuu baa muuqataa in iska tahay intimidation ama cabsi gelin si mucaaridnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiya ay leedahay inta cimrigeyga ka harsanna cadaalad baan anigu rabaa Cabdiraxmaan Ordogan telefishinka Nabad TV Hargeysa